sanadkani 2020ku waxa uu ku bilowday si ka duwan sanadadii hore waxayna dadka waxgaradka ay saadaalinayaan in dunidu gabagaba ay marayso. sanadkani waxa uu ku bilowday cabsi iyo walwal laga qabo dagaalkii saddexaad ee dunida in mar kale uu qarxo. dabka Australia ay ku dhinteen nus milyan oo xayawaanad duurjoog ah. aafooyinka dabeecadda oo soo tanayo coronavirus-ku dunida cagaha istaajiyay ilaa kacbada ay firaaqo ka noqoto. dadka qaar waxay ku micneynayaan in tani ay tahay ishaaro tilmaamayso dhammaadka nolosha. saynis yahanadu waxa ay sheegaan in dunidu kuleelkeeda uu sii kordhayo sanadba sanadka ka dambeeya. dunidu dhaqso ayay u kululaanaysaa, taas oo saamaynteedu ay tahay isbeddel waqti dheer. qaar ayaa waxa ay sheegayeen in sanadka 2020 uu yahay fursaddii ugu dambaysay aan wax uga qaban lahayn dhibaatada. taariikh ahaan heerkulka dhulku waa uu isbeddelay. waxaa sidoo kale ay sheegayaan magnetisku dhulku inuu dhaqaaqay si xooli ahna uu ku socdo. magnetiska dunida oo dhaqaaqana waxay la micno tahay in jihooyinku booska isku beddeli doonaan. isbeddelka jihooyinkuna waa qoraxda oo ka soo bixi doonta galbeed, waana maalinta diintu ay sheegtay maalinta toobada u dambaysa. Magnetic North is actually on the move right now, shifting away from Canada and towards Siberia. hay-adda NASA waxa ay sheegtay 29 bisha Abriil 8 subaxnimo waqtiga Soomaaliya in dunidu uu ku soo wajahan yahay dhagax aad u weyn. waxaa suuragal ah xisaabaad kala sameeyay sida ay sheegayaan in dhagaxani dunida uu geeska mari doono. Stephen Hawking geeridiisii ka hor waraysi uu BBC-da la sameeyay waxa uu yiri dunida 100 sano gudaheeda haddii meerayo kale bani'aadamka uusan raadsan nolosha meerayahan waxay u badan tahay in dhanka dhagax uga soo dhici doono ama virus dilaa ah in nolosha uu soo ciribtiri doono. Today risks annihilation. It could be an asteroid hitting the Earth. It could be a new virus, climate change, nuclear war, artificial intelligence gone rogue. We can and must use our curiosity and intelligence to look to the stars. We must do it now before humanity is overtaken by some disaster that we can neither anticipate nor control. si aad u daawato muuqaalkani oo dhammaystiran linkiga xagga sare kaaga muuqdo inaad ku dhifato waa ay kugu filan tahay.